الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وعشر كيك وبيلابتناد يا كتاب كان حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح بإذن الله تبارك وتعالى وحان كهذا لنا هل كان بعثك أو إسسو صار كإن دتك لصوب دون البعث والنشور ربي وحولي والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون dadku markay dhintaan waa la soo bixin doonaa alla xaggiisana loo soo noqon doonaa waa maalinta qiyaamo waa maalintii yowmu daama waa yowmu alcardi cala allahi subxaana watacaala maalinta dadka ilaahay loo soo bandhigi doono yowma yunfakhu fi suur waa maalinta la afuufi doono suurka rabbi leeya wanaxshuru lmujrimiina yowmaidin zurqa waa maalinta mujrimiinta lasoo shirin doono زرق الأجساد وحال هذا وأثر ضربات الملائكة ملائكة جراعة يكون سمينيان ضدك حنحنكا أيام مذب كودي بدلية وصدا ويلي المجرمون وحي حنبارسيهين أفقاشودي الذنوب تودي بحنباريان سيدا قفكم مسافر كأدونك على بديس أو حنبارو أي يو حنبارسيين مالنتا الدنبي قودي ولا soo shirinaya iyagoo wajigoodu uu madow yahay waxa ka madowna waa kaabiyo xusni iyo murug baa la yiraahdaa markuu qofku og yahay meesha loo sii wada inayna meel fiican ahayn wajigiisa baa madoobaanaya yawmul qiyaama waa maalinta arwaabit waxyaabaha dadkii ay isugu xidhnaaba wada kala go'ayo oo hadda qof waliba naftii buu taagan yahay waa maalinta dadku kala cararayaan maalintaas iyada waxaa la afuufi doonaa suurka haddii suurkaa la afuufana faida nufika fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaaluun yani wax ma jiro xidhiir oo dadka markaa ka dhaxaynaya ruux walba tiis ayaa saabata oo midiisa ayuu u socdaa waa maalinta qulubtooda la qarcin doono oo garaaca ahwaasha iyo dhibaatada meesha taagan ayay qalbiga qofka yaa saas mudawadnuhu inuu soo baxaya sida lagu cabiray dadku sigaar bay noqonayaan oo kul tiradoodii markii hal meel la soo wada keeno ayaad moodi kal faraash mabthuuth oo kale sidaas oo kale ayay noqonayaan marka maalintaas iyada waa maalinta ilaahay subxaanahu wa tacaala qiyaamadu hawsheedu ay badan tahay laakiin ogaada dadka ahlu iimaanka dad fiican oo mar walba waxaa jira sidii sabcatun yudhilluhum allahu fii dhillihi yowma laa dhilla ilaa dhilluh 7 guruub oo iyagu maalinta carshu raxmaanka iska harsan oo fiirinaya meesha waxa ka dhacaya oo halkaas meel wanaagsan iyagu fadhiya ayaa jira oo insha allahu tacaala ilaahay baan ka baryaynaa inuu inagu daro guruubyada 7 insha allahu tacaala haddaba sifada iyo qaabka dadka loo soo xashrin waa sidee dadka waa lasoo xashrinaya iyagoo kabala baa lasoo kaxaynayaa iyagoo qaawan baa lasoo kaxaynayaa iyagoo oo xitaa aan gudnayn baa la keenayaa ayib markaa sidee ku dhashay hooyadood ku dhashay qof waliba isagoo abaa la keenayaa waa maalinta rabbi leeyahay yowma natwi samaa ka tayyi sijilli lilkutubi kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu sidii aanu ku abuurnaan ku soo celinayna waa wacdan calayna waa yabaho rabbi subxaanahu wa tacaala qofna qof fiirin maayo qofna qof fiirin maayo likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nu yughni ruux walba tiisaa ku filan marka ruux kala arki maayo caaisha markay weydiisay yaa rasuulallah miinay dadku isfiirinayn wuxuu yihi caaisha waxa meesha yaalla baa ka daran inay dadku isfiiriyaan wejigoodii baa ka muuqataa qof walba isagaa dulaysan oo hoos fiirinaya indhahoodii baa maaragtay hoos u jeeda shiddat alkhawf walhala dhibaatada ayaa badan wacanat alwujuuhu lilxayi alqayuumi waqad khaaba man xamala dulma marka waxaa weye dadka laakiin dhaalimiinta ee xumaanta wadaba dhibaata iyagu maalintaas haysataa khoofka iyo halacda mawaaqifta iyo mowqifka la joogayo waa mid adag ma sahlana yowm alqiyaama waa dheer yahay waa xayaati iyo nolol baa la yidhaahdaa lugaha qofku ku fadhiyaa oo cala rukab buu halka ku istaagayaa mar qofku waa aamusan yahay mar hoos buu reemayaa mar waa hadlayaa qof walbana wuxuu leeyahay wax isaga mashquuliya wakhashacat ilaswaatu lilraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsa nin gabayaa abaa runtii ku cabiray gabay aada u cajo badan oo yidhi tafakar fii mashiibika waalma'aabi wadafnaka bacda cizika fi turaabi إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب تفكر كفكر قف والبو مركا قبوده
dhiman doonto eed noqon doonto rabbi xaggiisana loo laaban doono, marka lagu aasi doono qabriga lagu gelin doono turaabtii carada lagu dhexgelay intaad adduunka dee sharaf aad ku lahayd, markaad hesho qabri aad adigu ku dhex jirto ood joogayso ilaa maalinta qiyaamada, intaa qabriga lagu sii jiri doonaa. wa fii awsaali jismika xiina tabqa muqatacatan mumazaqata alihaabi, markaad ku jirto qabriga uu qofku dhex jiifana wuxuu noqonayaa qof xubnihiisii oo dhan ay wada kala go-go-aan, ay wada maqaarkii iyo xubnihii wada kala baxaan ayuu noqonayaa, ciiddaas inta ay cunayso intii ilaahay uu talagalay. falowla alqabru saara calayka sitran, haddii qabrigaasi uusan astur inoo ahayn oo ilaahay subxaanahu watacaala qabriga qofka la geliyo uusan ku asturin, la antanat ilabaatixu walrawaabi, waxaaba uri lahaa baa layidhi dad badan waxaa qabrigooda kasoo uri lahaa meelaha abaatixdu waa dhulka hoose iyo alrawaabi waa dhulka sare, yacni buuraha iyo meelaha dooxu intuba ur bay wada noqon lahaayeen, laakiin ilaahay baa qabriga ku asturay ummadda. khuliqta min aturaabi fasirta xayan, ilaahay baa wuxuu inaga abuuray ciid buu inaga abuuray, dad nool buu rabbi inaga dhigay. wa cullimta alfasiixa min alkhitaabi, ilaahay hadalku ina baray iyo sida wax loo hadlay sida wax loo cadeeyo ina baray. waxaan u laaban doonaa mar labaad cudta ila turaabi fasirta fiihi, ciiddaasaan ku noqon doonaa oo waa maaragtay aan dhiman doonaa, haddana waad ka soo bixi doontaayo waa laga soo saari doonaa. wuxuu yihi sheekhu gebagabadii gabayga, faطalliq hadihi اdunya halaathan wabaadir qabla mowtika bilmataabi, adduunyadan 3 dalqadood ku fur oo wax la rajciyeysta ma leh, una degdeg buu yihi geeridaada intaadan dhimanina atawba atawba atawba. nasaxtuka fastamic qawli wanusxi, wuxuu yihi waan kuu naseexeeyey ee dhegeyso naseexadaydaas iyo hadalkaygaa dhegeyso, adiga oo kale waa la tusaa sawaabka. fa mithluka qad yudallu cala sawaabi, wanaagga ayaa la tusaa kadibna waa lagu socdaa. atawba atawba alawba alawba alrujuuc alrujuuc ila allahi tabaaraka watacaala, rabbi aan u laabano marka intii adduunka aan ku noolahay fursad ayaan haysanaa, laakiin marbay fursadu dhammaan doontaa. ilaahay subxaanahu watacaala toobada haynaga aqbalo. wajazaakum allahu khayr wbaarak allah fiikum.